ciidamada difaaca heebaha Soomaaliya oo la aasaasay maanta oo kale 10kii bishii Febraayo 1956 ayaa maanta Muqdisho ugu dabaaldegay sanad guuradii 54aad ee ka soo wareegtay aasaskooda. munaasabadda xuska dabaaldegga ee sanad guurada 54aad ee ciidamada badda waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda xukuumadda federaalka Soomaaliya ee difaaca, wasiiru dowlaha gaashaandhigga Soomaaliya, taliyayaasha ciidamada xoogga, asluubta, abaanduulaha ciidanka xoogga dalka iyo saraakiil ciidan. gaada ka ciyaar iyo dhoolatus ciidan oo ay gudaha xerada Marina Geed ay ku soo bandhigeen ciidamadu ayaa waxaa daawanayay wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Maxamed Cali Amar Dambe. taliyihii hore ee ciidamada badda ee difaaca heebaha Soomaaliya Admiral Faarax Qare ayaa ka sheekeeyay waxqabadka iyo aasaaska ciidamada badda Soomaaliya. bishii Febraayo 1970 taliyii ugu horeeyay unitkiisa lagu bilaabo anigoo ahaa bateriga koobaad ee madaaficda xeebta ayaa halkaan ay u ahaa jirta saldhig ilaa baterigaas laga geeyo 1982 beledweyne dushiisa aniga naftaydu aan geeyo markaan ciidankan aan taliya ka ahay halkaasna ay mataqaawixi Soomaali ciidankeedu ku qabsaday ayaa ku qabsaday laakiin waajibkeeda waa guday. Admiral Guuto Cabdi Warsame Ismaan taliyaha ciidamada badda ee difaaca heebaha Soomaaliya ayaa sheegay in ciidamada badda Soomaaliya ay hadda yihiin kuwa ku hawlan daafaca heebaha Soomaaliya. sidoo kale taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Sareeyagas Daahir Aadan Cilmi Indhaqarshe ayaa waxa uu sheegay in dhalinyarada ka midka ah ciidamada badda looga baahan yahay ka qayb qaadashada dhismaha ciidanka. maanta waxaa nasiib wanaag ah in ay koow tahay in aan ku dabaaldegno halkii koow laga aasaasay ciidanka badda iyo difaaca heebaha ee bateriga madaafiicda xeebta loo aqooni jiray in aan maanta ku xusno sanad guuradii 54aad inaan ku xusno maanta waa farxad oo laba-laaban. waxaan filayaa waa joogaan maanta saraakiil aqoon u leh ciidanka badda nasiib wanaag, saraakiil xigeenno iyo dabley aqoon u leh way joogaan. waxay u baahan tahay keliya waxa weeye in la dhiirigeliyo isla markaana baadigoob wadajir ee loo galo wax alla wixii suurtagal ah ee lagu dhaqaaji karo ama lagu ilaalin karo badayna. gabagabadii munaasabadda sanad guurada ciidamada badda waxaa ka hadlay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya Mudane Xasan Maxamed Cali Amar Dambe isagoona sheegay in dawladda Soomaaliya hadda ay ku hawlan tahay dhismaha iyo tayeynta ciidamada qalabka sida wuxuuna tilmaamay in si guud ay uga go'an tahay sidii wax loogu qaban lahaa soo celinta ciidamadii ay lahaan jireen badaha Soomaaliya. waxaan isleeyahay meel fiican ayaan soo gaarnay sababtoo ah taariikhda Soomaaliya waa la ogyahay waxaan kaga jirnay kaalin aad u mug leh oo aad u wanaagsan laakiin dal burburay sidiisaba wuxuu u baahan yahay inuu soo kabto. waxaan aaminsanahay maanta inaan hayno dhabadiisa oo kabashada.